yaa keenay fikradda ah in qabri la qodo oo meyd la aaso. Sheekadan waxay u laabanaysaa bilowgii aadamaha ama ilmihii uu dhalay nabiyullaahi aadam calayhi salaam, Haabiil iyo Qaabiil. Haabiil iyo Qaabiil waxay Alle u soo bandhigeen qurbaan si ay Alle u raali geliyaan. Allah wuxuu aqbalay qurbaankii Haabiil sababtoo ah niyadiisa ayaa aad u wanaagsaneed, taasoo keentay in Qaabiil uu xaasi noqdo oo uu go'aansado inuu dilo walaalkiis, wuuna dilay. sidaas darteed Haabiil wuxuu noqday qofkii ugu horeeyay oo la dilo, halka Qaabiilna uu noqday qofkii ugu horeeyay ee wax dila. kadib dilkaas Qaabiil uu ka qoomameeyay oo muusan karinayn wax uu ku sameeyo meydka walaalkiis oo hortiisa yaalay. markaas ayuu Allah u soo diray laba tukay oo istagaalaya. mid ka mid ah tukayaasha ayaa kan kala dilay. tukii wax dilay ayaana qoday god oo uu ku aasay kii dhintay. Qaabiilna isma waalne wuxuu sameeyay intii uu tukii sameeyay. sidaas ayayna ku barteen bini aadamka sida meydka loo aaso.